أنا محمد أحمد محمود على محمد عرب كما قدر مركا إن كسر laga wada hadlay arintii oo in badan ay socotay rag badan ka hadleen misna anigu qaybta aan ku leeyahay baan ka hadlaya oo xagga suugaanta ah oo ku saabsan arinta la socod ka dhacday marka ku soo dhawaada tixdan gabayga dhageystayaal adduunyada ninkii soo jiray way aragoobay haddii uu abwaan yahay wadciga aad u garanaya amuuraha intuu soo arkiyo subax oranayay afkaartiya aqoontu hayaa la ogaadayay aniguna sidoo kale murtida waa u abtiriyay idilkiinba Soomaaliyeed maqal qoraahdayda adduunyadu awow iyo awow ilaa aadan iyo xaawo aqal kaliya ayaan tay ahayd ubadkii hoos joogay ilma aadan weeyo ardayga lagu ekaysiye afaro iyo waxay noqdeen oo lin kala taala qaaradahan ilaahay unkiyo dunida oogeeda axmariga eeshiyaanka iyo ehladii shiikhda asmariga afrikiyada aradka loo buuxshay abyadaga yurubaanka iyo oli nabadeedka isukeenka Ameerikada la isu soo urushay ودوينتا أستراليا جيلو كو أبادي ومدهن إلهي أنكيو أنكن ودا يالا waxa ururba oday looga dhigay hays arrimiyeen innaguna sidoo kale wadcigan waynu aragnaaye afkaarahan asaageen watee lagu adeegayo Soomaaliya maxay naga amnaay waa ambiyayaab Soomaaliya maxay naga amnaay waa ambiyayaab hays abaabuleen baan lahaa idilba Soomaali hays abaabuleen baan lahaa idilba Soomaali awoodiya aqoontan lahaa ha isu geeyeen ayaamahan ordayaan lahaa ha intifaaceen umad kale irnoodan lahaa ha isu urureen cadaawahan agtoodan lahaa ha iska eegeen aradkoodan maqan baan lahaa ha u ilbixiyeen ha yeeshee arrinisay ahayd ilama ekaan iminkay ufiya soo baxeen bala alusnayde ubuucdi lascaano waa la isla oogsaday SSEdu eed ma leh haddaan la isku orinayn ururinta midnimo in badan bay ugu horeysaaye ururinta midnimada in badan ugu horeysaaye idilkeedba Soomaali waa ood walaala ah cidna kama eryaan aradkan ay abid lahaayeen urugiya waxa soo ifbaxay lama ilaawaan arxan laawayaal baa shacbiga RRE SNMta weeyaan wixii aafada dhigay inkastoo eeday faleen nagu agmeerayso ugu buuye xaajidii qarnigan nagu olosnayde inta aan arrimahan socdiyo balada awdayno idilkiinba Soomaaliya raalli ka ahaada